xildhibaanada golaha deegaanka ismaamulka Wajeer waxaa dul saaran calaamatu su'aal la xiriirto dhacdo ay shacabku ku tilmaameen inay tahay beeldareen lagula kacayo xolaha dadweynaha gaar ahaan xilligan ismaamulka iyo gobolka Waqooyi Bari si guud ay u wajahayaan abaaro daran oo Wajeer kaliya ay khatar u jiraan nus milyan qof inay abaartu galaafato. xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxa ay u baxeen sida la sheegay aqoon kororsi howlahooda shaqo aadan oo lagu qabanayo magaalo xeebeedka loo dalxiistago ee Mombasa sida xogta aan helnay ay sheegayso, balse shacabku waxa ay ka walaacsan yihiin in lacagta halkaasi ku baxayso ay gaarayso ilaa iyo 10 milyan oo shilinka dalka ah oo celcelis ahaan boqolkiiba 90 dadka abaartu ay taabatay anfici lahayd. ismaamulka Isiolo oo isagana ka mid ah kuwa ay abaartu saameysay waxa ay la yimaadeen qorshe boqolkiiba 100 ka fiican midka Wajeer. barasaabka ismaamulkaas Cabdi Guyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in la hakinayo shaqooyinkii dawladda ismaamulkaas si ugu horeyn wax looga qabto xaaladaha abaareed ee ismaamulka. waxa intaas uu ku daray in aysan jirin dawlad si caadi ah u shaqayn karta iyadoo shacabkeeda gaajo ay la baaba'ayaan. wararkan la xiriiro safarkan shaqo baridda lagu sheegay ee xildhibaanada hoose ismaamulka Wajeer iyo lacagta ku baxaysaba waxaa si cara leh baraha bulshada kaga falceliyay shacabka ismaamulka ka soo jeedo oo ka walaacsan abaarta jirto. haddaba haddii sidan ay ku sii dhaqmaan dawladaha hoose ee countiyada Waqooyi Bari sidee ayay noqon kartaa rajada shacabkii u soo codeeyay oo wali uusan xitaa ka angegin dhididkii ka baxay maalintii codaynta.